ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ku guuleystay maanta inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle ka tirsan maleeshiyaadka kooxda ugus kaasoo duhurnimadii maanta nin ganacsada ah dhaawac ugu geystay degmada wadajir ee gobolka banaadir. ciidamada ayaa baacsaday kadib markii gacan ku dhiiglahan iyo mid kaloo la socday oo baxsaday ay dhaawac u geysteen yar ganacsada ah oo degmadaasi ku dhaqan, waxayna ciidamadu soo bandhigeen gacan ku dhiiglaha iyo hubkii uu dhaawaca ku geystay iyadoo ay ciidamadu u fidiyeen gacan ku dhiiglaha gacanta markii lagu soo dhigay kadib gargaar caafimaad oo looga dabiibay dhaawac qaybta hoose ee jirkiisa ay ka soo gaarsiiyeen xabadihii lagu baacsanayay. dhagarqabahan oo ay hay'adda nisa soo bandhigtay ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdi yare iyadoo magaca kooxda ugus dhexdeeda looga yaqaano uu ahaa nabhaan. waxa uuna ii sheegay ka hor intii uusan ku biirin kooxda ugus inuu ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxdaasi ay cagta mariyeen ee xisbul islaam, asagoo ka mid ahaa rag aad ay u doondoonayeen mukhaabaraadka dowladda Soomaaliya. gudoomiyaha degmada wadajir Axmed Cabdulle Afrax ayaa uga mahad celiyay ciidamada gacanta ku soo dhigay dhagarqabahan ka tirsan kooxda ugus ee maanta lagu soo qabtay gudaha degmadaasi asagoo beegsanaya mid ka mid ah muwaadiniinta degmadaasi. maanta jimco ahayd waxa aan rabaa inaan bogaadin iyo hambali u diro ciidamada ammaanka oo runtii ku guuleystay inay gacan ku dhiigle ay soo qabtaan caadaystay inuu shacabka dhigooda banaysto dad badanna hore u dilay maantana asigoo dadka dilaayo gacanta ku soo dhigaan waxaan leenahay mahad ka gaarto ciidamada sidoo kalena shacabkii u fududeeyay inay hawshaas sida u dhacdo oo gacan ku dhiglaha dhibaatada shacabka u soo kalihi jiray muddo dheer sida uu shaqay jiray gacanta lagu soo dhigo runtii cadawgu howlo dheer oo waqti dheer ay dadka shacabka ay dilayeen ayaa shacabka runtii aad iyo aad loo abaabulay ciidamada iyo maamulka iyo dhammaan iyo shacabkana ay go'aansadeen in cadawga noocaas iska qabtaan. maxamed yuusuf cismaan afayeenka wasaaradda amniga gudaha ayaa asna sheegay dhagarqabaha maanta la soo bandhigay inuu ka mid ahaa rag lagu raad joogay oo horay muwaadiniin Soomaaliyeed gudaha degmadaasi wadajir dilal qorshaysan ugu geystay. waxa uuna sidoo kale sheegay in dhagarqabo kale oo baxsaday uu weheliyay ninkan la soo bandhigay maanta. sida u jeedaanba wiilkaas dhalinyarada ah oo ka tirsan kooxda kumaadka ummadda Soomaaliyeed ugus ayaa maanta degmada wadajir waxa uu ku dilay ama ku dhaawacay nin muwaadin Soomaaliyeed oo ganacsada ah. waa shabakad isku xiran oo baryahanba dadka ku dilay magaalada muqdisho. Allah u naxariistay dhakhtarkii iyo injineerkii iyo muwaadinkii Soomaaliyeed u dambeeyay maxaa la yiraahdaa wasaaradda maaliyadda ka shaqeynayaba shabakad isku xiran oo dilkaas ka dambeeyay waaye. maalintii ay dileen ninkii u shaqeynaya wasaaradda maaliyadda mid ka mid ah ayaan oo dadka u fududay ah ayaa hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed qabatay. baaris kadib waxaa noo suurta gashay markii ugu horeysay maanta dhalinyaro ka tirsan ugus oo muwaadin Soomaaliyeed bistoolad si arxan darro ah ula dhacay in ciidamadeenu ay ka jawaabaan oo ay qabtaan. wuu dagaalamay ciidankii waxa badeeyay sida u jeedaan dhaawaca gaaray. degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ka dhacay dilal qorshaysan oo lagu beegsaday muwaadiniin Soomaaliyeed, waana tallaabo farxad gelinaysa shacabka degmadaas ku dhaqan in dhagarqabe kooxda ugus ka tirsan oo fal dil ah gacanta kula jiro hay'adda nisa ay soo qabato. waxayna hay'adda nabad sugidda